afayeenka xisbiga mucaaradka wadan Ibrahim Mahdi Buuba oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay isla markaana fariin u diray komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaanu sheegay in xisbiga maxaafadka kulmiye oo bilaabay olole aanu xilligiisa gaadhin taasoo uu ku tilmaamay inuu yahay mid sharciga ka soo horjeeda waxaanu xusay afayeenku in xisbiga kulmiye uu isticmaalo hantida ka dhaxaysa ummadda iyo sidoo kale gawaarida GT-ga dawladda iyadoo ay tahay in hantida dadweynaha si siman loo isticmaalo waxa lagu jira xilligii ololaha doorashada uu iska bilaabmi lahaa dhawaan inkastoo muddo kooban nooga harsan tahay haddana waxa bilaabmay oo xisbiga kulmiye bilaabay olole qayr sharci ah maanta waxaan wax ka oran doonaa ololaha aan sharciga waafaqsanayn iyo qodobo kale oo iyaguna muhiim ah oo aan ku dari doono ugu horeyn waxaanu la soconaa in kulmiye ka bilaabay gobolada galbeedka ama gobolka Awdal iyo Gabiley olole aan sharciga waafaqsanayn oo baalmarsan nidaamkii qarankan u degsanaa iyo nidaamkii doorashooyinka u degsanaa labadaba ololaha ugu horeyn marka hore xisbi ahaan waan cambaaraynaa waxaanu leenahay idinka oo ah xisbi xaakinkii anana aanu xisbi mucaarida waxa idinku tahay ceeb inaanu idinka barino saaxadda ku soo noqda siyaasadda oo gafka sharciga sameynaysan joojiya waa qodobtaas waxa ka war haysaan in xitaa loo fasaxay fagaarayaashii khayriyooyinka ee magaalooyinka Gabiley Awdal Wajaale Allay baday iyo kuwa kale fara badanba halka xisbiga wadani xafiisyadiisa hortiisa loogu diido iyadoo barasaabada iyo bilayska loo adeegsanayo inay kala hadlaan shacabka taageerayaashiisa ah xafiisyada hortooda inay kala hadlaan waa arrin foolxumo ah oo aan loo dul qaadan karin keenina kartaa in xaaladdu si kale isu rogto haddii laga digtoonaan waayo waxa ka war haysaan in barasaabadii dalkani lahaa ay ka mid ahaayeen waftiga uu hogaaminayay musharaxa kulmiye muuse tusaalahan haday soo qaato barasaabka saraar ayaa ordayay Gabiley iyo Boorame maxaa ka yaala kaga xidhan Gabiley iyo Boorame inuu xisbi xaakinka uga ololeeyo ama uu daba ordo isagoo soo dayacay shaqooyinkiisa iyo hawlihii qarankan uu idmaday waxa sidoo kale ka mid ahaa oo waftigaasi ka dhex muuqday ama horboodayba maayarada Gabiley iyo Hargeysa iyadoo toodii dayacan tahay isla markaana kharashaadkii dawladaha hoose ay qaban jireen ama cashuurihii ku bixinaya ama kaga bixinaya kulmiye kharashaadka ololaha qayr sharciga ah ee uu ku jiro waa arrin foolxumo ah oo aan loo dul qaadan karin aadna aan u cambaaraynayno waxa kale oo ka dhex muuqday agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaranka leeyahay waxa kale oo ka dhex muuqday ugu yaraan 27 agaasimo waaxeed oo ka tirsan wasaaradaha qaranka ka shaqeeya dhammaantood waxay soo dayaceen shaqooyinkii qarankan ay u idmanaayeen inay u qabtaan waxay soo dayaceen oo ay ka yimaadeen hawlihii waajibka ku ahaa ee saarnaa iyo adeegyadii ay bulshada u fidinayeen waxa sidoo kale ka dhex muuqday intaas oo wasiir oo xafiisyadooda haawanaya ama wasiir ku xigeen ama wasiir dawle waa ceeb iyo foolxumo xukuumadan iyo xisbigan iswan soo food saartay bulshada reer Soomaaliland ay wada aragto waxa kale oo taa ka sii daran gaadiidkii GT-ga ah oo lagu xaragoonayo oo aan la xishoonayn la baqanayn cid baa ku arkaysa aan la islahayn saxaafada aan laga banayn oo si bareera ololaha xisbiga kulmiye ee aan sharciga waafaqsanayn waliba uga dhex muuqda Khalid Yusuf Xasan Fantastic Television caalamiga Somali News Hargeysa